garoonka aadan cadde ee magaala madaxda Soomaaliya ee Muqdisho ayaa maanta hab maamuus loogu soo dhaweeyay meydkii Allaha u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya marxuum Cabdirasaaq Xaaji Xuseen. garoonka aadan Cabdulle Cismaan ayaa saaka ka duuna sidii uu horey u ahaan jiray waxaana garoonka buux dhaafiyay wafuud kala gedisan oo ka kala timid gobolada dalka iyo caalamka iyaduna goobta lagu arkayay madaxda sare ee dalka madaxda maamulada ka jira dalka Soomaaliya wasiir ka socday xukuumadda saraakiisha ciidamada salaadiin cuqaal iyo dadka waxgaradka ahi oo ka kala yimid gobolada iyo waliba daafaha caalamka. amniga caasimadda ayaa ahaa mid si weyn loo adkeeyay waxaana wadooyinka lagu arkayay ciidamada booliska Soomaaliya oo goob walba xiray laamaha ammaanka dalkana waxaa la geliyay heegan xoogan. in yar kadib ayaa garoonka waxaa soo caga dhigatay diyaaradii siday meydka marxuum Cabdirasaaq Xaaji Xuseen ra'iisul wasaarihii hore ee dalka waxaana la socday qaar ka mid ah ehelkiisa iyo shakhsiyaad ay saaxiibo ay ahaayeen. diyaaradda ayaa meydka waxaa ka soo qaaday qaar ka mid ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxaana lagu daday calanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyadoo intaasi kadib ciidamada Baambaydu ay goobta ay ku garaaceen astaanta Baambayda qaranka Soomaaliya. qof walba ama mas'uul walba oo ku sugnaa gegida aadan Cabdulle Cismaan ayaa waxa uu ku sheegayaa in Soomaaliya uu ka baxay shakhsi muhiim ah taariikhdana ay xusi doonto Allaha u naxariistay. meydka marxuum Cabdirasaaq Xaaji Xuseen ayaa loo qaaday masjidka Isbahaysiga halkaasoo salaadii janaasadu ay kula tukadeen madaxda sare ee dalka oo ugu horeeyay madaxweynaha dawladda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxmuud. iyaduna salaada janaasada kadib meydka marxuumka loo qaaday deegaanka Ceel Cirfiid oo dhaca duleedka waqooyi bari ee caasimadda waxaana marxuumka lagu dhinacaasay saaxiibkiisii hore Allaha u naxariistay madaxweyne aadan Cabdulle Cismaan waxaana loo jeeday madaxda dalka iyo siyaasiyiinta oo ka qayb qaadanaya duugidda ra'iisul wasaare Cabdirasaaq Xaaji Xuseen. ubax Cabdirasaaq Xaaji Xuseen waa gabar uu dhalay marxuum Cabdirasaaq Xaaji Xuseen. waxaa aad iyo aad u mahadsan dadweynaha xamar jooga iyo dadka Soomaaliya oo meel fog iyo meel dhow ka yimid si ay ka qayb galaan aaska aabe Cabdirasaaq Xaaji Xuseen. waxaa dambaysa oo mahadsan Soomaalida iyo dawladda Minneapolis Minnesota degan dawlad iyo dad aabe aad iyo aad u jeclaa oo tacsi na soo gaarsiiyay maadaama aan isugu nimid aaska aabe iyo adeerkeen iyo walaalkeen Cabdirasaaq Xaaji Xuseen reerkiisoo dhan waxaan rajaynaynaa in la helo Soomaalidaas Cabdirasaaq Xaaji Xuseen jeclaan lahaa. asxaabta isku dhawaayeen isla markaana la socday meydka Cabdirasaaq Xaaji Xuseen waxaa ka mid ahaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar. cabdirasaaq magac buu Allahu naxariistay aadan Cabdulle u bixiyay magacaasina waxa weeyaan mid maanta maalin looga baahan yahay hayna jirin. magacaasi wuxuu ahaa daahiriye ayuu bixiyay cabdirasaaq 1966 wuxuu uga jeeday aadan Allahu naxariistay waxa weeye ummaddu isku dayay inuu daahir ka dhigo uu nijaasta ka biiyo waxa weeyaan Soomaaliyay nijaastii ma iska biin doonaa mise tii aadan ka ducaystay ayaan dul joogi doonaa waaye. Cabdiwali Cali Gaas madaxweynaha Puntland ayaa dhinaciisa ka tacsiyadeeyay geerida haliyey Cabdirasaaq Xaaji Xuseen. maanta halkan waxaa isugu nimid aaska Allahu naxariistay Cabdirasaaq Xaaji Xuseen ee wasaaraheena Soomaaliya oo taqaaniin taariikhdiisa iyo shakhsiyadda uu ahaa ku caan baxay wadaniyad Soomaalinimo halgan gobonnimo doon ka bacdina asaasidii dawladnimo Soomaaliyeed ku caan baxay dawladnimo wanaag karti iyo hufnaan la dagaalanka musuqmaasuqa iyo wax kasta oo dawladnimada ka soo horjeeda. wuxuu ahaa oday Soomaaliyeed wuxuu ahaa haliyey qaran maantana si qarnimo ayaan uga asnay xamar lagu aasay saaxiibkiis aadan Cabdulle Cismaan. sharaf been noo tamarkaan ka soo qayb galno u nimaadno aanu
ma oranayno aanu ka xunnahay qof kastoo bini'aadan uu dhimanaya allah u naxariisto kullu sa'iqatul mawt. madaxweynaha dowladda federaaliga ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu dambeyntii tacsi u diray ummadda Soomaaliyeed iyo ehelkii iyo qaraabadii uu ka tagay ra'iisul wasaare Cabdirasaaq Xaaji Xuseen. ra'iisul wasaaraheenii hore Cabdirasaaq Xaaji Xuseen oo taariikhda Soomaaliya iyo taariikhda dowladnimada la garanayo doorka uu ka soo qaatay haddii ay ahayd xorriyaddii iyo haddii ay ahayd dhismihii dowlad Soomaaliyeed oo casri ah oo shaqaynaysa oo leh karti iyo hufnaan sida uu caamka uu ku ahaa alayskiisuna uu ahaa. allah u naxariisto muxuu ahaa Cabdirasaaq intuu noolaay ummadda Soomaaliyeed wuu midnimadeeda iyo midaynteeda ayuu ku mashquulsanaa ka shaqaynayay. maanta oo aan qabrigiisii aan dul joognana weli waxaa muuqata in xataa geeridiisina ay midaysay dadka Soomaaliyeed oo ay runtii isaga yimaadeen meelo aad iyo aad u kala fogfog aad iyo aad u kala duwan dad kala duwan oo aan muddo dheer is arkin ay yimaadeen magaalada Muqdisho dad aan 24 sano la soo dhaafay aan imaanin inay maanta yimaadeen maxaan ku raadayay aaska muxuu ahaa marxuum Cabdirasaaq Xaaji Xuseen awgiis. taas daliil waxay u tahay marka in dhimashadiisina ay dadka Soomaaliyeed ku midoobeen. waa la ballamay dadka yimid oo dhan in la tashado oo laga tashado sidii loo dhameystiri lahaa dawlad dhisidda dalka Soomaaliya. marxuum Cabdirasaaq Xaaji Xuseen ayaa ugu dambeyntii looga soo tagay gurigiisa runta ahaa waxaana shacabka Muqdisho ay saaka isugu soo baxeen wadooyinka magaalada Muqdisho iyagoo ka murugaysan aaska iyo geerida ku timid ra'iisul wasaare Cabdirasaaq Xaaji Xuseen wuxuuna aaska uu ku soo gabagaboobay si nabadgelyo ku dheehan. Salmaan Jamaal Saciid TV-ga caalamiga Universal magaalada Muqdisho.